beentii ugu dambaysay ku sheegtay maxay ahayd kugu dhacdo si ay kugu gabiso waxaan ku kala teganahay marka koowaad kaalinta shidaalka ka shaqeynay shaqada hoosiisin garanaysa oo loo haydo kuwan bamka kaad baawar shal ku shubahayd okay laakiin iyadu kuma biilayne soo waxay kugu dhacday kuma rabo maadaama aad kaalin shidaal ka shaqaysid dad hargeysa garanayso kaalmo shirada wax jira haas la yiraahdo haas petroleum afkeeda uraya markaas kale kaalin hadaad shidaal ka shaqaysid adiga kuma rabo follow samay like samay you think aniga inaan shaqada u joojinayo maadaama aadan rabin u gambi that's why baan kula yahay is this bilow inaad xariiftantid okay markaan kula yahay naagahan iska dhaaf si aad u xariiftantid been maad u malaysaa waxyaabahaas oo kale aad la kulmaysaa markaas niyadda ka jabays shaqada waxay ugu dhahday iska dhaaf maadaama aniga ayada soo qabanaya teacher hello ama ali raxaysa waa ku salaamay magacaaga meesha joogtid waa ka qaad macallin si ka caado la magacaaga iyo hargeysan joog hargeysan oo saki cali hargeysa joog ma qajaraata saki 21 baad saki okay maxaad qabataa waxaan ka shaqeeyaa maxay yaday Dama Hotel ka cusub ninka la furay Dama Hotel ba manager ka oo hotel bad manager ka tahay oo okay waad shaqaysataa okay so adiga dhaqaale ku soo galo waxa jira aad soo xariifto soo okay barnaamijyada goorma ku soo birtay isaki I think imka adu ilaa beentii ugu dambaysay ku sheegtay maxay ahayd kugu dhacdo si ay kugu gabiso والله يا رتمر كورة أنا وشقها وحكي بلاوي أنا شقي وحن بلاوي تودي محي أنا وسألت وشرو كرنسا فكان فنفرق بعيد أوكي مرة وحكي بلاوي كان الشيدال ده الجسر كرنسو كان مش شرو عشرة هاس لا هاس بتروليوم برادا شكو سعو أوكي وحي محل دي شري أقول هذا الناس وهذا يجعل المحل ديس أوكي so سؤال اللي يجي جواب وافهمين عشان قصة برادا I'm glad إن هذا حريف تميسد عاد كان الشيدال كشقة بلوده كدي بعد بلوده محل دي شري and you know وقفر أحسن waxaan ku kala teganahay marka koowaad kaalinta shidaalka ka shaqeynay shaqada hoosiisin garanaysa oo loo haydo kuwan bamka kaad baawar shal ku shubahayd okay laakiin iyadu kuma biilayne soo waxay kugu dhacday kuma rabo maadaama aad kaalin shidaal ka shaqaysid yeah dadkii wiga lumay okay wuxuu ugu dhahay halka meeshuu marnay sheekada waxay ahayd maxaa la dhahaa aniga wuxuu dhahay naagta waxay igu dhahday maadaama aad ka shaqaysid kaalin shidaal kuma rabo hal wax baan kuu sheegayaa taasi waxay kuu caddaynaysaa naaguhu ragga ay rabaan waa rag nolosha meel ka gaadhay waa rag meel taagan waxay rabtaa wax iyada ka sarreeya macnaha waxay rabtaa wax yar oo laakiin hal wax baan kuu sheegayaa noloshaan process waa noloshaan safar waa okay so shaqada aad ku bilowday maaha dhamaadkii adduunka waxa aad hadda haysatay maaha adduunka dhamaadkeedii okay waxa aad hadda bilowgii aad wadwaday ee brother listen maadaama aad shaqada qabatid aniga kuma rabo okay fuck you aniga ima rabtid dhib ma laha waan soo dhisayaa laakiin yaan lagugu ceebaynin shaqada aad qabatid okay way sameeyaan qof shaqo la'aan waaye naagtan afkeeda uraya markaas kale kaalin hadaad shidaal ka shaqaysid adiga kuma rabo fuck you bitch fuck you think aniga inaan shaqada u joojinayo maadaama aadan rabin u gambi that's why baan kula yahay is this talaabo waaye kama boodi kartid processka nolosha ma khiyaami kartid kama boodi kartid maxaa la dhihi jiray waxyaabaha aad u baahan tahay inaad martid si aad qof u noqotid brother listen حصل جري كليجا حريفتا فوكس جري كليجا عدكو قبلان قادين ما جرتو inaad wariga meesha taagnanaysid kaliya ana ma rag badan baa jira rag tugaama ka shaqeeya jira rag waxa jira maxal li jiray manager rag waxa jira kaalmo shidaal ka shaqeeya rag waxa jira McDonald meesha rabta ka shaqeey shaqadaada sidii rabtaa u liidato cid ka bixinaysa ma jirto kirada cid ku biilaysa ma jirto cid surwaal ku gadaysa ma jirto ku faraxsan oo shaqadaada hadda waa qayb kamid ah processka meesha ma taagnaanaysa inta noloshaada ka dhiman maya ma taagnaanaysid kugula mana taagnayo
waad ka kacaysaa laakiin adiga khadiija kuusay aad burinaysaa adiga intii yareedaad soo shaqaystay iyadaad ku qancinaysaa markaas aakhirkooda mise kula nin shaqooyinka noocaana qabta anigu ma rabo ku faraxsanow qofkaa tahay shaqadaad qabanaysid ku faraxsanow cid biilashaada dhiibaysa ma jirto nin ahaan isku filnow shaxaad iyo tuugsi 100% shaqada aad qabanaysid baa dhaanta cidna ha ugu axsaan samaynin ama ha ugu maxaa la dhihi jiray ha ku raali gelinin inay kugu ceebeeyaan shaqada aad qabanaysid aday ka qayb qaadanaysaa horumarkaaga aday ka qayb qaadanaysaa inay dhaqaale kuu samayso aday ka qayb qaadanaysaa sid qof ku noqon lahayd kor iyo hoosna agu waxba kama oga waxa aan marno nin si aan rag u noqono waxba kama oga shaqo firiya xataa hadda koor waan qaban jiray shaqo $50